dhawaada channelkeena Ihsaan. Maanta mowduucan ka hadlaynaa waxa weeyaan sidaad ugu jawaabi lahayd qof ku caayay ama qof kugu jeesay. Sida aynu la wada soconno, jeesku cid kasta way soo martay. Waanay soo maraysaa ilaa iyo intuu qofku ka dhimanayo. Qiso. Waxaan u tagay laba saaxiib aan lahayn si aan u soo heshiisiyo oo isku dhacay. Isku dhacistuna waa nolosha wax ka mid ah. Labadii qof aan u tagnay inaan soo heshiisiyo, mid baa kacay oo xanaaqay oo caayay arday qofkii kale. Waan yaabay, anigana u nacay. Qofkii kale uma jawaabin, qofkii kale hadalka ma soo bixin. Waan yaabay, waxaan ku yiri walaal maxaad ninka ugu jawaabi weyday? Wuxuu ku yiri dhibaatada ayaa sii badanaysa. Caaydu ama jeesku dhibaatada ugu weyn waxay soo gaadhaa waa ciyaalka. Culimada wax daraaseeya waxay leeyihiin 40% caruurta dhalatay ee la caayay ku soo kortay jeeska iyaguna ma ka weynaadaan dadka way caayayaan. Haddaba jawaabtu waxa weeyaan sidaan ugu jawaabayaa qofkay caayay ama ku jeestay. Waxaan u kala saaraynaa 3 qodob oo waaweyn. Qodobka koowaad, qofka ku caayay hadduu ku dhow yahay sida saaxiibka ugu dhow, ehelkaaga, markay ku caayaan aduu ka aamus. Waayo Nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yiri qofka xooga badan leh maaha qofka dadka lagda ee qofka xooga badan leh waxa weeyaan waa qofka naftiisa hanta marka la caayo. Qodobka labaad, qodobka koowaad intaan ka bixin ehelkaagu markay ku caayaan ama kaad u ka aamustid hadhow waxa laga yaabaa in iyagu ka cudur daartaan. Qodobka labaad, qof ka fog ama qof aad u neceb tahay ama qof aan jeclayn adigu hadduu ku caayo ama kugu jeeso maxaad samaynaysaa? Waxaad samaynaysaa qofkii waad u cudooda, waxaad ku oranaysaa waad waaninaysaa qofkii. Waxaad ku oranaysaa walaal caaydu ma habboona, in la is caaya ma habboona, in la isku jeesa ma habboona, diinteenu way ka digtay. Qof saasad ugu waaninaysaa. Qofka saddexaad waxa weeyaan dhibaato ugu weyn ka soo gaaraysa hadduu ku caayo ama kugu jeeso waxa weeyaan qofka ka sareeya maamulahaagii macalinkaaga hadduu ku caayo dhibaato aad u weyn baa ku soo gaaraysa. Marka jawaabtaas siinaysa qofkaasi waa maxay? Jawaabtaas siinaysa waxay ku xidhan tahay kolba fikirkaaga iyo intaad wax ka jawaabi kartid, inta aqoontaadu leegtay ay ku xidhan tahay jawaabtaas siinaysa.